فرصوقك كوباد جزيرة بريق بلالنتي أيا وحى هلاي سوهان شري الجزيرة منبر بلا منبر له جزيرة منبر كعدا منبر لهين أي كهذا الشيء أنا بنوجح معين الله استعماله أروس كان تاريخي إن حول الناس عطاء إنه لما تكون سود بيهاي إن نوقف عند السنة ضد كذا نوتصنه إن هالكم ما يكون عصر دور الشري ويسوس عطاء ونسكسو جينا وأرين سياسية يدعم كان لك رسالة وقدر كلامات هذا الربو إلى الحوتيو وحل صوب على فرطون ورفرطون سمال المرة هي وبحنين ومر يلبو يصدق هي فرسوه لي والله يا هيل كيسي هل كنا وحكاها لي سياسيين الضوفي سياسة oo wareeg dheer ay ku qaadatay soo noqoshada ma sababu inay soo noqon doonaan soo tartan baa lagu jira waa qodobka saddexaad markii laga hadlay taariikhda dheer ay leeyihiin labada reer ee isguursaday dee taariikh siyaasadeed baa ku jirta oo meesha ragga ka muuqda marka la eegto anigu waxaan kala garan waayay ma kulmiyuun baa qaybsamay mise mucaarid kala jira xaqiiqda marka laga hadlayo ودرك هو وين ما كل بيوم أو قرب كلام كل بيها شري لكن ما طلع كل كسوة جستي مرقى تلفت يدنا وحل سلاحي ما لها ديم ما بسي كفجان به واحد عضين دورون مرقى يمكن هاو شوي لو سجب جوجويس واحد بسوق جبجبين يا والله هاي جور كلها مركيو سؤال الحقيقة شرف النوت هاي مضمنا على كلام أي إنه ملح حكومات هي مدح معارضة أي نوكا كفتنو هل قضبان أدرك محمد علي ومدح الحزب هل كوكا صوت قلي لأن أدرك علي حبيبه كامل يقول شري لا مرة واحد شعلان لها إن أضيق هل كي أضياشي ولا مريو مرقى تلفتي ذنو حواليها النبو حتى أنتوا هاي سترد لي بهين قبل كان مثلا ديسة دياليس قالوا كم وقت هل كان أضيق لوجه هذين هذلك waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan waad santihiin waa xafladii ugu horeysay malaha ee dhaqanku soo xidhi doono anu saan u aqaan xafladaha dhaqanku way furi jireen laakiin de kama xubiyo adeerkay Suldaan Dawal waan u ogolahay barkadna waxa leeyahay haddaad adeerkay abshir isku aragteen jeelka in badan baa ka dambeysay jeelka oo barkadii muddo adeerkay abshir in badan ba xaqan u ahaa marka malaha fadhi dambada maanta isku wareysataan marka hal istirsado shaqaduna way socotaa dhawaana insha Allah ta'ala sidii milgaha iyo sharafta lahayd ee Soomaaliya lagu yaqaanay cidii qabataba way hambalyeyn doonaa qarankeenu shaqeynayna wixii ka horeeyana waa kaftan siyaasadeed iyo wixii shuruucda iyo dastuurka iyo qawaaniinta loo baneeyay waxa ugu muhiimsan in qalbi wanaag iyo isjacayl iyo walaaltinimo iyo hadafkeena guud ah Soomaaliya adduunyada magaca ay ku leedahay ay xoojiso